السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا لمال باجوتان إسيال وموقع جديد سوغاريو walaalkiina samafalay xasan kaafi oo isla markaasi idin soo bandhigayo hooyo dhibaataysan oo ku nool mid ka mid ah xariyaha qaxootiga Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya. hooyadan waxaa lagu magacaabaa Bishaaro Shire Aadan. waxay inoo sheegtay in ay dhawaan ka imaatay gudaha dalka Soomaaliya sidoo kalena xaamil ay tahay. waxay haysataa laba caruur oo agoom ah aabahooda ku dhintay qarax oo ka mid ah qaraxyada ka dhaceen magaalada Muqdisho. waxay noo sheegtay dhawaan inay soo gashay xariyaha qaxootiga wax kale iska daa xitaa aysan helin diiwaangelistii dadka qaxootinimada ay ku joogeen ma haysato hooyo ay jeefato waxay dirs la tahay dhaxaanta habeenkii dhaco sidoo kale waxa mararka qaar dhibaato u geystaan dadka dhalinyarada muqaadaraadka cunaan sida ay noo sheegtay. bismillaahir rahmaanir rahiim anoo magacayga lahaa Bishaaro Shire Aadan waxaan ku soonahay xirada qaxootiga Dhadhaab maxay ahayd dhagaxley anaga waxaan ka imaaday dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho dawladka barakacayaasha aweydow ayaan ka imaaday ilmahaas labada cunug aan wata oo ogaamaha abhood oo maxaan ku raday iga dhintay marka waxa weeyaan halkaan baan ku suganahay kollay kaar ma leeyahay baahanahay maxaan ku raday qof xamil oo 8 bilood noonahay hooyo ma haysto nololna haba sheegin shan guri yar oo jingada korna jingadka ee hoosna ka maxaan ku raday ka qaawan ayaan ku hooydaa qaraabo meeshan kama aqaano dad kama aqaano maxaan ku raday awood hadda guri aan ku kireystana ma haysto kaar ma haysto hadda la ima qaabilin kollayba meeshan hadda oo maartay aabanan hor taagnayn hooyina ku haysan oo maxaan ku raday waraabahan u dayacnahay qof xaamil aan iska ahay daris aan lahayn oo caawa hadaan xanuunsado qof aan u cidirana aan lahayn ayaan ku suganahay habeen hore maxaan ku raday nin baa ii soo dhacay oo shandarwada iigu soo galay kollay ilaahay baa iga celiyay wax kale hadda uu ii reebtay malahan ilaahay baa iga fujiyay maxaan ku raday hadii qof maartay aaba uu hor taagan uu yahay nin ima imaadeen kollay uma caalamkii iyo islaamka waa u jeedaan meelaha aan ku suganahay oo dayacan kollay qof xaamil baan iska ahay wax kasta oo jilacsan baan u baahanahay laakiin hadda waaba hooygiyaaba iga sii daranba noloshii xaggeeda oo iska adag hooyo xumadiyaaba haddana ka sii daran meel macnaha guri aad xiranayso maxaan ku raday maartay aad ku noolaatay ma haysatid waraabahaas ma iska kaana kormaraya cabtooyda nimanka oo mooryaanta iska kaana kormaraya habeen kasta wayna soo kor istaagayaan ilaahay baa naga celinaya had qof bilaadan oo iga celinaya malahan aniga kollayba waxaan u baahanahay maxaan ku raday dayactiraad macnaha oo weyn walaalaha Soomaaliyeed muxsiniinta meel walba caalamka ka joogan ay ka dalbatay inay soo caawiyaan wax Allah waxay u awoodaan anagu kollay muslimiinta inta maxaan ku raday islaamka inta Soomaali gabar Soomaali banahay maxaan ku raday meelaha aan ku suganahay aad looga xanuunsado walaal ma qabi ehelad ma qabi caawinayso aaban macnaha aabaheena waa dhintay oo hadana caawin mayo maxaan ku raday hadaan qaraabo leeyahay ama maxaan ku raday iyo waalid maxaan ku raday wax ay qabanaya aan leeyahay meeshan maxaan ku raday kuma aan dayacanaadeen caalamka iyo adduunweynaha muslimka inta ku nool waxaan ka codsanayaa inay silaacan noloshana maxaan ku raday nolol xumada aan ku jiro in maxaan ku raday la iga dayactir baan u baahanahay